wasiir ku soo dhawow isbitaalkii guud ee magaalada Boorama aniga ka agaasimo ahaan kulay waxaan warbixin uu ka bixinay isbitaalka guud ee magaalada Boorama isbitaalka kulay waqti xaadirkan wuxuu u shaqeeyaa sida caadiga ah waqti dhawaanaha ahayd waxa kulay marka hore culays badan saaray covid-kii xanuunkii saf markii covid-19 laakiin hadda intii dambe waxaad moodaa inuu ka soo kabanayay xanuunkaasi horumar badan oo la taaban karana uu sameeyay haday tahay dhinaca adeega caafimaadka ee uu bixiyo bulshada iyo haday tahay dhinaca horumarinta isbitaalka laftigiisa isbitaalka waxa ka howlgala shaqaalaha caafimaadka ee kala gedisan haday dhaqaatiirtii specialists-ka lahaa yihiin iyo haday dhaqaatiirtii guud yihiin haday yihiin kalkaaliyaashii caafimaadka iyo mulisooyinkii isbitaalku waa isbitaalka kaliya ee referral u ah gobolkan Awdal waxa kale oo beeshanadu uga yimaadaan oo referral u yahay wadamada nijaarka nahay ee ay kamid tahay Ethiopia iyo Djibouti isbitaalka kulay staan horena uga bixinaynay hadda waxa mashruuca ugu weyn ee socday waxa weeyaan mashruucii sifaynta kaliyaha oo aynu soo aragnay waarkii loogu talagalay inaynu dhigno oo kulay ay ka qayb qaadanayeen isbitaalka wasaaradda horumarinta caafimaadka dawladda hoose iyo bulshada reer Awdal guud ahaan inta gudaha joogta iyo inta dibadda joogta labadaba ay ka qayb qaateen hawshaasi iyada kaliyuhu meel fiican bay maraysaa hadda waynaga soo aragnay waarkii oo uu socdo dib habeyn lagu wado insha Allah dhawaana aan bilaabi doono dhismihiisii iyo hawshiisii kale waxa kulay aan ku jirnaa waqti adag oo covid-kuna uu saameeyay oo mar labaad soo sameeyay laba kaclayn inaga oo maahay adduunyada oo dhan waxaad moodaa hadda inuu mowjadiisii labaad ay socoto kulay Soomaaliland kama duwana adduunyada kale ee soo maro hadda waxa walaal adduunyadu waxay noqotay waa tuulo kaliya qofka ka soo duulo hadda wadamada galbeedka caawa wuxuu nala joogaa Soomaaliland isku socodkaasi wuxuu isaguna markaa fudaydinayaa in xanuunkii isaguna socdaalka inta leeg uu sameeyo haddaan ka warramo bilihii ugu dambeeyay 3 bilood ugu dambeeyay sidii uu warbixinta nagu siiyay madaxa shaybaarka isbitaalka guud bishii December waxa la baaray oo dadka laga baaray xanuunka covid-19 waxay ahayd 245 qof oo isugu jira dadka inta badan socdaalka sameynaya ee wadamada caalamka iyo wadamada jaarka tagaya iyo dadka degan gobolka waxa markaa 245 qof waxa laga helay xanuunka oo positive noqday waa 5 qof waa bishii December ee sanadkii hore bishii koobaad ee sanadkan iyadana waxa baaritaan loo sameeyay sidaas oo kale 270 qof waxa markaa laga helay oo positive noqday waa 1 qof bishan hadda February socota iyadoo bishii February dhamaatay waxa iyadana la baaray 250 qof iyadana waxa positive noqday 1 qof dadka markaa inta ugu badan baaritaanka sameynayay ma dadka degan oo raadsanaya talooyinka caafimaadka waa dadka safarada tagaya oo markaa ay ku xiran tahay safarkiisii inuu warqadii baaritaanka sito marka inta ugu badan waxa markaa dadka laga helay labada qof ee labada bilooda iyo bishii December sanadkii hore 5 qof waa degan inta ugu badan dadka degmada magaalada degan iyo gobolka guud ahaan intaasi waxaan ka bixi covid-ka waxaan hadda wasiirka uga faa'iideysanayaa iyadoo uu joogo degmaduna kulay isbitaalku u maatay wasiirku hadda waxa aan soo marnay oo soo kormeernay 12 qol oo qolalka gaargaarka ah ee dadku Kristaana oo hadda gacanta laga qaaday oo qalabkiisa u dhameystiran yihiin alaabtii iyo wax kasto yeelanay diyaar tahay waxa qura dhiman ay tahay beeshanadii la jiifiyo uu kuma tahay wasiirku kulay isaga lahaa initiative-kaasi ama dadaalkaasi in laga dhiso isbitaalka guud ee magaalada Boorama isbitaalku waxa kale uu leeyahay baahiyo kale oo ay kamid tahay in la kordhiyo saalada qalliinka ama tiyaatarka qalliinka oo aad iskaga yar marka loo barbar dhigo magaalada Koriinkeeda iyo isbitaalka Koriinkiisa oo malaynayo muddooyinkan dhow in tiyaatarka la kordhiyay waxaad moodaa waqtiyada qaar ilaa tiyaatarkii hore muddada hore qalliinada lagu sameeyay inuu wali jiro meelaha qalliinka lagu sameeyay waa 2 qol way kala yihiin mid waxaan u isticmaalaa waxyaabaha qalliinada culus midna waxa loo isticmaalaa qalliinada yar yar labada qol buu leeyahay tiyaatarku marka waxaan horena wasiirka ugu sheegnay codsi ahaan ugu gudbinay in wax kasto suurtagal ah oo ay nagala qabtaan fidinta loo sameeyo tiyaatarka waxa kale oo isaguna aad u yar oo aad moodaaba
halkii isbitaalka laga soo galayay oo ah meesha bukaan socodka OPD-ga laftigiisu isbitaalka aad buu ugu yaryahay bulshada intaa leegay dhowrka boqol ee kun ee degan degmada iyo gobolka guud ahaan meel loogu adeego oo bukaan socdo oo intaa leegay aad bay u yar tahay marka horena codsiga waan ugu darnay wasiirkan hadda waan uga faa'iideysanaynaa iyo guud ahaan waxyaabaha kale ee markaa aan isleenahay baahiyaha ka jira oo ay ka mid tahay markaad eegto isbitaalka guud ee magaalada Boorama waxaanu lahayn marka loo barbardhigo isbitaalada kale ee dalka emergency department qaybtii emergency-ga ma laha waxaan isticmaalaa qaybta loogu talagalay ICU-ga la yiraahdo bukaanada aadka u serious-ka la dhigo uma emergency hal loo isticmaalo laakiin emergency-ga guud ee isbitaalku isticmaalay waa bukaan socodka marka isbitaalada kale ee dalka markaad eegto way leeyihiin qayb u dhisan wixii emergency hadii uu gaari soo dhaco iyo hadii ay wax kale weynba dhacaan meel dadka nooca inta leeg lagu qaabilo de warashu mageyna marka taasna waa caqabad jirta inta ugu weyn waxa weeyaan dhibaatooyinka kulay caqabadaha haystaa intaas ugu muhiimsan waxyaabo kale oo iska waxa jira caqabado badan oo iska fudud laakiin waxaan xooga saari lahaa saddexda qaybood in marka dhismaha tiyaatarka sidii loo kordhin lahaa iyo bukaan socodka oo aad noogu yar iyo qaybta emergency-ga oo iyaduna u baahan in dib loo dhiso waa isbitaalku ma balataa marka wad maadsantahay wasiir iyo madaxda kale la socotay barasafka ugu horeeyay iyo gudoomiyaha degmadu inta baan ku soo koobi lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.